ku dhawaad 71 milyan oo qof ayaa guryahoodii ka barakacay sanadkeenu ka soo gudubnay sida ku cad warbixin ay soo saartay hay'adda oo eegta xaaladaha qaxootiga caalamka oo dhan. tiradaasi waxay isku celcelis noqonaysaa in 37,000 oo qof maalin walba ay barakacaan. 3 dalool laba qaybood oo dadkaasi ka mid ah waxa ay ka soo barakaceen 5 wadan oo kala ah Suuriya, Afghanistan, South Sudan, Myanmar iyo wadanka Soomaaliya. laakiin halkee bay ka tagaan dadkaasi marka la eego? sanadkii shanaad ee isku xiga Turkiga ayaa waxa uu galay kaalinta koowaad oo dadka ugu badan qaabil, waxaana ku xigay Pakistan, Uganda, Sudan iyo waliba wadanka Jarmalka. qaramada midoobay waxay sheegaysaa haddaba in tirada qaxootigu ay aad uga badan tahay inta la og yahay, waayo laguma daro barakacayaasha Venezuela. qaar badan oo kamid ah dadka Venezuela ma codsan markii ay u galeen dalalka dariska ah, waana adag tahay in la helo tirada dhabta ah. qaramada midoobay hadda waxay sheegaysaa in dagaalada iyo cadaadisku ay yihiin waxa ugu weyn ee dadku ay ka soo qaxayaan, waxaana ay sheegeen in colaadaha daba dheeraaday ay tirada sii kordhiyeen. waa kan madaxa hay'adda badbaadada caalamiga ee IRC ee UK oo arrimahaasi ka hadlaya. xaqiiqdu waxay tahay dhowr mushkiladood ayaa jira oo tiro badan ay ka soo baxayaan dadkani, laakiinse waxaynu arkaynaa waxa weeyaan ee dhab tahay inaan caalamkii intuu isu yimaado aanu iskaashanaynin sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinkan jira. laakiinse dad fara badan ayaa imika barakacay oo welibana wakhti dheer barakacaasi ku jira. waxaan joogay Suuriya 2013kii, waxaanu haystay inuu dagaalku sanad ama laba ku dhammaanayo, laakiin imika waad arkaysaa sanadkii 8aad ayaynu gallay. marka waxay noqonaysaa in haddii aan caalamku iska kaashan oo aanu wax ka qaban arrimahan, iyo weliba haddii aan Britain oo kale aanay qaadan hormuud ka noqon golaha amniga, waxaynu arkaynaa in dadka qaxoontiga caalamku ay sii siyaadi doonaan.